Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibadayda soo dhowaada. Maanta waxaan idiin wadaa samafale khaliif suldaan nabadoon cabdikariin sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo runtii si weyn aad wada garanaysaan. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago howlihii khayriga ah ee sanadihii ugu dambeeyey oo ka qabtay dalka iyo dibaddaba. Waxaana ugu muhiimsan howlihii quruxda badnaa ee khayriga ah ee uu qabtay sanadihii ugu dambeeyey aaskii sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan sheekh abuukar uu uga qayb qaatay runtii si milge iyo sharaf leh, waxayna ahayd xuquuq ilaahay subxaana watacaala uu saaray, wuxuuna u gatay sidii ugu habbooneed iyo si ka qurux badan. Runtii howlihii kale khayriga ah ee uu qabtay sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa aaskii walaal abuukar sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo runtii ka soo qaaday dibadda una keenay dalka si qurux badan oo uga qayb qaatay aaskiisii, tacsidiisii iyo duugtiisii dhammaanba. Waxayna ahayd xuquuq ilaahay uu saaray, wuxuuna u gutay sidii ugu quruxda badneed. Runtii howlihii uu qabtay wax la soo koobi kara maaha. Waxaa qayb ka ahaa ziyaaradii weyneed ee maal cali yarow deegaanka Jasiira Baydhaxan oo runtii uga qayb qaatay maal, waqti, juhdi iyo xaadiritaan intuba uga qayb qaatay. runtii waxayna ahayd howlo kale oo khayri ah oo isaga si isxilqaam ah isku saaray, waxayna muujinaysaa inuu yahay runtii khaliifka nin aad u khayr jecel. Intaas kuma eka, waxaa ka mid ahaa dayactirka iyo dib u dhiska qabriyadii sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan iyo walaal abuukar sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo si qurux badan qabriyadooda u nuuriyey una dhisay oo dhagxaan uu kaga dhisay. Runtii waxayna ahayd howle isxilqaama oo isagu isaaray. runtii ilaahay waxaan leenahay kaa jaziyo abaalkaas aad waxawaaye gashatay dhanka khayrka. Waxaa ka mid ahaa howlihii khayriga ah uu sameeyey inuusan iloobin macalinkiisii dugsi qur-aanka oo qabrigiisa ku yaalo degmada Kaxda garaan boqolka boos. runtii qabriga macalinka ayuu si qurux badan u nuuriyey. ilaahay ha u nuuriyo sidii uu qabriga macalinka u nuuriyey iyo qabriyadii kale ka horreeyay sheekh cabdulaahi iyo walaal abuukar sheekh cabdulaahi. Intaas kuma eka howlihiisa, waxaa qayb ka ahaa inuu gacan u fidiyey masjidka weyn ee Abagado degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. uu waqti iyo juhdi ku bixiyey sidii dhismihiisa loo sii dhaqaajin lahaa oo meel sare loo gaarsiin lahaa, isagoo waqti iyo juhdi geliyey, runtii gacan weynna u fidiyey. Keliya intaas kuma eka howlihii uu sameeyey, waxaa ka mid ahaa aaskii iyo duugtii iyo ka qaybgalkii tacsidii caalimkii weynah ee sheekh Muxuudiin sheekh Cumar Garweyne oo runtii uga qayb qaatay si milge iyo sharaf leh. runtii waxyaabaha khayriga ah ee uu sameeyey khaliifka inta laguma soo koobi karo. waxaa qayb ka ah aas-aasidda dugsiga faca weyn ee arday kaal kiscado walaal iyo gebi ahaanba hay-adda Maaba Xabiibo Foundation. sidoo kale waxaa qayb ka inuu tournamentii ama tartankii kubadda cagta uu qabtay ardaydii dugsiyadii Cado Walaal, haddana loo yaqaano arday kaal kiscado walaal, oo runtii tartan qurux badan halkaas uu ka qabtay si milge iyo maamuus lehna tartanka ugu soo gabagaboobay, iyadoo tartankaasi ay ku guuleysteen dugsiga Atam lagana guuleystay dugsiga hay-adda Maama Xabiibo Foundation dugsigii ku ciyaaray. runtii howlihii uu khaliifka sameeyey sanadihii ugu dambeeyey ma aha wax lasoo tirin karo ama lasoo koobi karo. keliya intii yareedee koobneed ayaan ka soo qaadanay. aad u mahadsan yahay khaliifka. waxaan leenahay ilaahay abaalkaaga khayr ha kugu bedelo. howlaha khayriga ahaa mar walba u quntahay, ilaahay subxaana watacaala ha ku xafido. dal iyo dibad meel kastoo aad joogtan ilaahay ha kugu xafido. warbixinteenana aan kusoo qaadanaynay howlihii khayriga ah ee khaliif suldaan nabadoon cabdikariin sheekh cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan. intaas ayaan kusoo gabagabayna. aad waa mahadsan tihiin. muuqaalka like saara, sii shargareya, meel dhargaarsiiya. horumar wacnaadin leh.